shacbiga Somaliland meel kasta oo ay joogaan gudo iyo dibadba waxa caawa inoo dhamaaday bishii barakaysnayd ee Ramadaan, bishii dambi dhaafka, bishii la xisaabtanka nafta, bishii isu naxariisashada. waxaan bogaadinayaa dhammaan shacbi weynaha Somaliland iyo ummadda Islaamkaba curashada Ciid al-Fitr inaynu ciidayno berrito ayaan hambalyaynayaa. waxaan u rajaynayaa sanadka sanadkiisa inaynu ku gaadhno nabad, barwaaqo iyo caafimaad haddii aan la yidhaahdo. waxaan salaan gaara u dirayaa ciidamada qaranka iyo xaasaskooda iyo caruurtooda. waan u rajaynayo inay ciid wanaagsan ku ciidaan iyo dhammaan shaqaale weynaha Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan bogaadinayaa wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland, wasiiradii, taliyihii ciidamada iyo saraakiisha kale la socdayba ee muddada bilka iyo dheeraadka ku maqnaa arrinta qaramaynta ciidamada madaniga ah oo runtii ay guul ka gaadheen, meel wanaagsanna marinayaan, inta harsanna aan filayo inay dhaqso usoo dhammaystiri doonaan. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan odayaashii iyo beelihii ciidanka qarameeyey ee ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisaba. waxaan kaloo iyadana bogaadinaya una ducaynaya wafdigii nabadda ee Ceraf Weyn oo insha Allah sidaan filayo aynu maqli doono dhaqso inay usoo afjareen colaadda muddada taagnayd ee nagu raagtay. waxaana kalsooni ku qabaa inay soo dhammayn doonaan arrintaas haddii alla yidhaahdo. waxaan kaloo jecelahay dhammaan qurba jooga Somaliland iyo cid kasta oo reer Somaliland meel kasta joogaanba aan ku bogaadiyo Ciid al-Fitr, ciid wanaagsan. wax la yaab leh oo wax lagu qoslana ah ee warkii ku jiray warbaahinta ee ka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliya ee isagoo maamuli kara xamar, haddana warka ah inuu ku baayactamayo dekedda Berbera iyo madaarka Berbera ku qoray waraaq uu qoray madaxweynaha dalka Mareykanka. waxaan u sheegayaa beesha caalamka iyo madaxweynaha Mareykanka iyo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan iyo dunida oo dhanba, Somaliland dalkeedana iyadaa ka talisa, baddeedana iyadaa ka talisa, cirkeedana iyadaa ka talisa. Somaliland waa dal madax bannaan, dowladaha mustaqbalkana ka mid ah insha Allah. Somaliland waxay u aragtaa hadalkaa ka soo yeedhay hogaamiyaha aan ku filayn nabadgelyada xamar ee haddana sheeganaya Berbera inuu yahay hadal dhaawici kara nabadda gobolka, xasiloonida gobolka. waxaanu ka digaynaa arrintaasi inay tahay arrin lagu habaabinayo beesha caalamka, oo beesha caalamka laftigoodu iyagoo og arrintaas ay kaba jawaabeen inaanay ka talin Muqdisho, iska daayo meelo kale ay sheegtaan Berbera maanta. Somaliland waa dal madax bannaan oo sida loo yahay taariikhdu aan mugdi ku jirin, gobonimadiisa ka qaatay dowladda Ingiriiska 26 Juun 1960, mar labaadna la soo noqday madax bannaanidiisa 18 May 1991. arrintaa waxaa sii xoojiyey aftidii qaran ee dunidu ka warhaysay ee shacbigu 97% ku go'aansaday inaanay ka mid ahayn Soomaaliya. Somaliland dalkeedana iyadaa ka talisa, sidaan sheegay, dhulkeedana iyadaa ka talisa, go'aankeediina iyadu ka go'aa. waxay leedahay xukuumad lagu doortay doorasho oo dalka matasha. waxaan u sheegayaa beesha caalamka inkastay og tahay iyo dadka Soomaaliyeed iyo dunidaba, Somaliland Xasan Sheekh madaxweyne kama aha. wuxuu ka madax yahay Muqdisho, Muqdishona kuma filna oo xaaladeeda waynu ka warhaynaa. Somaliland ciddii doonaysa inay la macaamisho ama xiriir la yeelato ama wax uga baahan, waxaa go-aanku ka go'a shacbiga Somaliland iyo xukuumaddiisa oo anigu madaxweynihii ay doorteen ahay. talada Somaliland maanta ilaahay ka sugo, ana iga godaya shacbigayga, cid kale ka goda, cid kale ku gorgortami karta, cid kale ku baacibtiri karta, cid kale ku dilaan tagi karta midina ma jirto. shacbigayana waxaan leeyahay waxba hadalka odayga
dhibaatada badan haysato waxba yuu khalkhal idin gelin ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu